Ambassador Maxamuud Dirgeedan oo kamid ah ka soo qaybgalayaasha shirkii lagu daafurayay saami iibsiga bangiga Shabeelle oo ka qabsoomay magaalada Dirdhabe ayaa waxa uu nooga warbixiyay ahmiyadda uu leeyahay bangigan ummadda Soomaaliyeed isagoona sheegay in ummadii horumar gaadhayn ilaa ay ka yeelato bangi u gaar ah ayna sidoo kale gali karin nidaamka dhaqaale ee wadanka ka jira. Waxa maanta shir weyn loogu qabtay dadka Soomaaliyeed ee magaaladan degan Dirdhabe arrinta bangiga Shabeelle. Bangiga Shabeelle waxa uu hadda yahay bangi samaysmaya waxana weeye bangi islaami ah mabaadiida aasaaska u ah diinteena suuban ee islaamka ku salaysan. Bangiga marka la leeyahay waa bangi islaami macnaheedu ma aha dadka kale way ka reeban yihiin. Dadka aqoonta u leh bangiyada waxay garan karaan bangiyada islaamiga ah ee ugu waaweyn adduunka kama dhisna wadamada Carabta waxay ka dhisan yihiin London bay ka dhisan yihiin oo wadanka Ingiriiska ah. Laakiin waxaan inagu ka hadlaynaa marka aynu u soo noqono way aragnimada deegaankeena iyo dadkeena oo ka hadhay xagga dhaqaalaha iyo nidaamka lacageed waxa loo yaqaan financial system. ummadi ma soo gali karto nidaamka dhaqaale ee wadanka dhex jira ilaa ay yeelato bangiyada u gaar ah bangi u adeega bangi dhaqankooda iyo diintooda ixtiraamaya ama tixgelinaya. Marka bangigani wuxuu bangiyada kale kaga gedisan yahay waxa weeye waa bangi uu qofka Soomaaliyeed iyo dadka kale ee muslimka ee walaalaheena ahba ay si iyagoo ugu dhiiran oo kuna kalsoon ay uga qayb qaadan karaan. Bangigani maadaama uu soo daahay waxa laga yaabaa intaas si loo arko inay leedahay dhibaatooyin laakiin faa'iidooyin kale oo aan muuqanayay leedahay waxa kamid ah khaladaadka ay bangiyada kala galeen markii la aasaasayay bangigani ma gali doono waayo aragnimo ayuu ka qaadanayaa. midda labaadna teknoolajiyada casriga ah markasta isbedel bay ku socotaa. isbedelkaas hadba teknoolajiyada dambe ayaa tii hore ka sii wanaagsan. marka wuxuu la qabsanayaa teknoolajiyada casriga ah ee ugu dambaysa ayuu la qabsanayaa. Soomaaliduna nasiib wanaag dad farsamooyinka xagga teknoolajiyada ku wanaagsan way barashadooda iyo qaadashadooda waxa la yiraahdaa learning and adapting inaad baratid oo aad qaadatid labadaba. marka waxa uu fursad weyn u furayaa bangigani dadkeena oo gala ganacsiga beeraha dhaqaalaha qaybihiisa kala gedisan xagga aqoonta iyo waxbarashadana wax weyn buu ka tari doonaa. waxa kale oo uu dhiirigelinayaa maalgeliyayaasha maalgashanaya mashaariicda kala gedisan ee dalkeena wadar ahaan laga wado. Ambassador Maxamuud Dirgeedan ayaa aaminsan in bangiga Shabeelle uu noqon doono hormood ummadda Soomaaliyeed u noqdo tub ay ku kobciyaan dhaqaalahooda. waxaan aaminsanahay dadka Soomaalidu inay lacag badan oo baahsan ay u helayaan weel weyn oo ay ku soo urursadaan isla markaana wixii danahooda ay ku qabsadaan oo halkii ay ummadaha kale ee aynu la deganahay ee walaalaheena aynu dalkana wada leenahay dhammaantood waxay leeyihiin bangiyo u gaar ah ayay leeyihiin. marka waxay noqonaysaa in aynu ka dambeynay marka laga hadlayo soo gelitaanka nidaamka bangiyada taasina waxay bangigan Shabeelle siinaysaa inuu yahay bangi hormooda oo fikrad loo baahnaa oo muddo dheer in laga maqnayd in lagu soo kordhiyay. daafurka saami iibsiga bangiga Shabeelle ee magaalada Dirdhabe ayaa ku soo beegmaya maalin kadib markii golaha fulinta deegaanka Soomaalida ay cod buuxa ku ansixiyeen in si buuxda loo taageero bangiga Shabeelle oo ah bangigii ugu horeeyay ee ay Soomaaliyeed laga hirgeliyo dalka.